waraysi aanu la yeelanaynaa Asad Xaajiyo oo ah nin dhalinyaro ah oo YouTuber ah oo IT engineer ah oo photographer oo qadar ilaahay ay ku dhacday laakiin qadartii ilaahay uu keenay aan intuu ku sabray haddana ku dadaalay in uu kamera dhaliyo riyooyinkiisa qaar ka mid ah qaar kale oo waaweynna ku tala jira Asad Xaajiyo waa nin dhalinyaro ah oo bulshada Soomaalida dunida daafeeda joogta aad u taqaano macallin weyn ku ah xagga YouTube-ka in badan YouTuber ahaa dad fara badan oo ku dhawaad 400,000 iyo ka badan insha Allah taala ay ku xiran yihiin wuxuuna ku socdaa 500,000 dhawaan inuu gaaro maalin dhowna waxaad arki doontaan isagoo milyankiiba korka ka jaray maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed ku xiran ee dhalinyarada iyo dadka anigoo kala odayaasha iyo hablaha ah ayaa aad ugu xiran barnaamijyadiisa uu ku soo gudbiyo talentiga ilaahay uu siiyey iyo siduu u dadaalo waxaanu oran karnaa Asad xaqiiqatan waa role model ama mid ku dayasho mudan hadday ahaan lahayd dhinacii diintii iyo salaadii iyo wanaagii hadday ahaan lahayd qadarta ilaahay lagu sabro hadday ahaan lahayd kursiga uu ku fadhiyo oo aan hayn karaynin oo uu ka wan yahay maalin dhowna Allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu ka istaago oo dib ugu socdo lugihiisa dib ugu socdo Asad muxuu maalmahan faraha ku hayaa goolasha uu tiigsanayo waa maxay iyo waxyaalo kale oo fara badan ayaanu ogaan doonaa dad waxaa jira ayagoo qadar ilaahay ku dhashay inay xubnahooda u dhammaystirnayn haddana dadaala waxaa jira dad xubnahooda u dhammaystiran yihiin haddana isdhigto oo maaragtay maskaxiyan ayagoo markaa u aaminaysan waxba qabsan karin ayagoo xubnahoodii ay dhan yihiin laakiin halkan waxaa ka muuqata dhinac walbaad ka fiirisidba inuu horumar nolosha ka samaynayo ilaahay waxaan nooga baryaynaa isagoo kale inuu noo badiyo uuna istaajiya Asad Xaajiyo waa kuma su-aasha aan raba inaan weydiiyo waa taas maxaad ka ogtihiin maxaad kala socotaan su-aalo badan oo dadka weydiiyana caawa waana weydiin doonaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan soo dhaweeyey saaxiibkay qaaliya xaajiyo soo dhawo saaxiib maasha allah aad iyo aad u dhowahay cabdixafiid maxamuud jaamac maasha allah aad iyo aad u faraxsanahay in uu maanta wareys ila yeelanayo ama aan la sheekeysanayo walaalkayga cabdixafiid oo aan in badan hawada aan kala socday laakiin de madaxweyne aan noqday maanta booska madaxweyne dibada gale waan ii farxad maasha allah ما شاء الله أبي بدأ حوينا نقارن رئيس الوزراء نقرأ الدولة عصوا نسينا إن شاء الله يا ما شاء الله ولكن دي أنا كمان لنا برنامج كاد يعزونتي وأنا كله هاي إن شاء الله وأنا كفرح سنة هاي وهاد بدن لو أجي حتى ملاحظي الصور استي مركا إنها مركز وين كهاي هذا الأوجاد وين أبوه هذا كبير كذا أنا أفتح صاحب ما شاء الله ما شاء الله ما صرت ولا الكي thank you إلهي وكرامي brother سكر هذا ندقو شرف إيه كلام بدن بانكوها يا شخصي هان كعبد حفيظ هان dadaalkaaga iyo wanaagaaga in badan baan kula socday afka ingiriiska waxay ku dhahaan inspirational baan u tahay millions of people xaqiiqatan dadaalka aad muujinaysid iyo sidaad u dadaalaysid iyo bulshada Soomaalida kugu xiran say ku jeceshahay haddaan ku arkaba waa faraxsan tahay waa qoslaysaa waa fiiraysaa ma sha Allah alxamdulillah يا الحمد لله فرحة إله إسيء نمعينك إله إسيء كمتهاي فرحة الحمد لله وحواي أنت أنا مكسو قارب فرحة دي ذا إيسوركي الحمد لله واقرتي هدي أن كويديو سؤال ضدنا سويدين يان أسد حاجيو واكما هدي الويل هذا محاضر الله يتاحي والله أسد حاجيو واكما يعني وحان أورا لها وأنا أسدي لها أسد حاجيو وأخوف لقردرستي هاي خوف لقردرستي أول الدولميي سلاسة أنا قلت الماما وأنا أهي خوف لقردرستي أول الدولميي نوع أهي لكن الحمد لله إله وإقبت بالي لكن dulmigaas darsiyo badan baad ka baratay waxaan ogahay inaad adiga laftigaagu aad go'aan ku qaadatay inaad intaad nooshahay
si kasta wixii kama u dhaca waa gooni aadan qof kale bilaadan u dulminin aadna doonaysid inaad dadka dulmiga iyo cadaalad darrada kala dagaalantid dulmigaas maxaad ka barat dadkase maxaad ugaga faa'iideyn kartaa wallahi dulmigaas wax badan aan ka bartay dulmi keligiis ma ahan sidoo kale waxaan helay nolol cusub waxaan isdhihi karaa waxaa haysataa nolol cusub tii hore tan hadda mararka qaar yani markaa sidaan aan noqdo yani badanaa kuma fikiro laakiin yani waxaan u arkaa inay tahay wax markaas yani qurux badneed sababtoo ah wax walba wuxuu ilaah kuu qoro waay ma fahanti wax ilaah qorana yani kun sano ay kaawen yihiin marka qadartaan igu dhacay wixii ka dambeeyey yani waxaan noqday qof yani ku sabra sidoo kalena yani dadka dhan yani igu garab istaageen yani sabarkaas keligeyga ma soo sabrin waa layla soo sabray ma fahanti marka koley taas waxaan ka dhihi karaa haddana nimcad kale ilaahay isiiyey waay yani dhib waayo ma dhihi karo asad waxaa ka mid tahay dadka baraha bulshada loogu jecel yahay ugu taageerada badan ma oran karnaa ilaahay markuu albaab qofka ka xiro 100 albaab buu u xiraa laakiin dadku kaa xiran bay ku mashquushay albaabada kale ilaahay subxaana watacaala uu kuu furay waaweyn ya alxamdulilah dadkaan jecel waxaan isdhihi karaa in ay ii tahay nimcadda ilaahay siiyey sababtoo ah yani markay wax igu dhacayeen iyo hadda isku mid mehi taas waxaan ula jeedaa meeshii la rabay in aan yani dhibaatooyinka isoo gaaray in aan ku fikiro dhibaatada ay haysato in aan ku fikiro yani meeshii laga rabay waxaan ku fikiraa oo aan mar walba yani aan ku fikiraa aan ku hamweynahay dadka i jecel sida yani aan ugu qosolsiin lahaa ama sida markaas yani waa fahmi kartaa yani aan madadaalo ku qaadi lahayn ma fahanti marka nimcooyinka ilaahay si ay ku tahay inay dadka wada jeclaadaan sidoo kalena ay iyagan i jecel yihiin alxamdulilah taasna waxaan dhihi karaa yani horumar waay xaqiiqatan horumar weyn weeye in aad hanatid in kumanaan kun boqolaal kun oo qof oo soomaaliya qalbigooda oo maalin walba suga barnaamijyada aad soo dhigtid oo ay ku xiran yihiin oo haddaa maanta aad dana yeelatid ama soo dhigi weydid channelkaaga dadka dhan ay jeegaraynayaan fartiimo lagu soo dirayo instagramka whatsappka lagu soo dirayo lagu leeyahay asadow maanta xagee ka dhacday waa ku sugaynay yani waxa lagu farxay qalbigooda ahaatay masha allah way jirtaa hadda waxaan ka maqanaa youtube-ka labadaas maalmood aan u talgalay in aan nasto oo aan waqtigeyga iyo baashaalkeyga kale aan maskaxda ku degsado ma fahanti labadaas beri aan ka maqnaa dad badanaa ila soo xiriiray oo la socday barnaamij aan hadda la keenay oo barnaamij hadda aan keenay oo aan u magac daray mid keliya dooro oo dad badan yani dadka dhan la socdo kuwaas la iisoo weydiiyey asad barnaamijka ma joojisay youtube-ku aad ka maqantaa lagu beri fariimaha qaar instagram iga soo gaaraya marka taasna waa ii farxad markaan arko runtii sidoo kale anigana waan isbaray in aan youtube-ka aan ka maqnaan micnaha aan ku guda jiro micnaha waxay ila tahay sida meel aan saaxiibadeedii aniga aan ku sheekaysan sax waa gartay barnaamijkan hadda aawodid mid dooro dadka waxyaalo kala duwan soo bandhigaysid waxa uu noqday mid very popular oo markiiba degdeg u hana qaaday oo dadku ay isweydiiyaan yuu keeni doonaa yaa ka mid ah waxyaalaha soo bandhigi su'aalo noocee buu weydiin doonaa fikirkan xaguu kaaga yimid markii hore maxaa fikir ku keenay soo ku dhashay barnaamijku maasha allah barnaamijkan horta yani si kadisaan ku arkay koley fikradda yani ana igama imaanay laakiin waxaan kasoo arkay meelaan kasoo arkay waxaan kasoo arkay manchester city channel ay leedahay oo tv marka muuqaalkooda recommended ahaan igu soo gaaray ciyaartooyda oo weydiinayo macnaha coachkaas la dooro iyo yani waa iska fahmi kartaa sidaa dadkaan aa weydiiyo mid lamida la weydiiyey ciyaartooyda oo ahaa ugu yaraan 3 sano ka hor dadkan mayna arkin badanaa haddaan Soomaali nahayne
dhanka socialka waana lagu horumarsan yahay dhanka fikradana waana lagu horumarsan yahay waxaan soo aragno keliya ayaan sameynaa marka yani fikradda halkaas keenay sidoo kale aanu barnaamij kusii guda jirnay waxaan kaloo ka arkay muqdisho cable sidoo kale igan barnaamijkan ay sameeyeen marka wuxuu ku kala duwan yahay waxay tahay kaliya yani qofka waxaa weydiiyaa labada mid dooro oo aan sabab lahayn qofkana sababta uu ku dooranayn ama shaygaas sababta uu ku dooranayn marka fikradda asalkiisa waxay ka timaaday youtube ay yihiin teamka Manchester City sidaas darteed anigana waxaa u bedelay Somali version بريسي باستا وبدل waa gartay marka dadkaas aad soo xulatid oo aad soo martiqaadid maxaad ku doorataa oo ama shuruudo ah ama maskaxaada ku jira markaas markaad leedahay okay for example khadar yar oo kala wareysanaya markaad leedahay ama qof kala wareysanaya maxaa ku doorataa su'aalaha shasay usoo xusha badanaa dadka aan keeno yani horta sida dadka aan kula xiriiriyo sida aan ku keeno aan ku sheegaa badanaa waxaa jiraan in dhanka commentiga laga codsado hebel soo qabo haddii qofkaas aan la xiriiro ay ii soo gasho dadkaan u shaqeeyaa ma fahanta marka intuu barnaamijka cusbaa dadaa laga soo codsanaya inaa keeno laakiin sheekadii bay isku bedeshay in aan la soo xiriiro oo barnaamijkaas u baahana liido yani ma filaynin inuu saas sidoo noqonayo laakiin ma rabin inaan taas sheego sababtoo ah xatii waxaan u sheegaa keliya inaan dadka aan la xiriiro yani way jiraan dad isoo xiriiriyo oo barnaamijkan rabo laakiin waxay u badan yihiin dad aniga aan xiriiro oo aan ka codsanayo markaas inay barnaamijka ila qayb qaataan sababtoo ah qofka aan markaas la xiriirayo wuxuu leeyahay taageero yani qofkan wuxuu ku ogaan rabaa ama yani qofkaas duuqiis wuxuu yahay uu ka ogaanaa sida bariis ama bato adiga waxaa jeceshahay lama oga marka qofkaas wuxuu leeyahay baastuu jecele birka baali hadduu ku casuuman baastuu kugu casuumaa marka taasna waa barnaamij aan ku furo inta badanaan waxay xiiseeyaan dadka muuqaalka intii dambe oo ah shakhsiyaad inaan kusoo qaado waa gartay waxaa jira aan jeclahay inaan bulshada u sheego adiga hadda waraysigan ama sheekadan dhex maraysa anaa adiga kaa dalbaday si sharaf oo qurux badana kaaga dalbaday si walaaltinimo ay igu soo jawaabtay waxaana ku arkaa aaminsanahay inaad tahay shakhsi bulshada Soomaaliyeed wax u haya dadaal badan arti leh wax soo saar leh dhibaatada iyo dagaalka iyo isqabqabsiga iyo waxyaalaha dhibka oo dhanna ka fog laakiin ku mashquulsan inuu naftiisa horumariyo saaxiibadiina uu la sheekaysto dadka noocaas oo kale waayahan dambe ugu yiriin marka saaxiib barnaamijkaas awoodilo quruxda badan iyo dadaalkaaga labadaba waa kugu mahadcelinaya waana kugu hambalyeynaya thank you so much adigan masha Allah dadaalka la heesaa oo TT lamid ah yani shakhsiyaad aad soo bandhigteen masha Allah intooda badanaa waan daawaday maanta marka adigan masha Allah maanta sida qurux badan aad loo soo bandhigaysid Allah karamay waxa jira oo jeclay inaan wax ka weydiiyo waxa tahay dadka successfulka dhinaca YouTube-ka in muddo ku jiray si fiican u yaqaana waxaan ognahay si sahal ah kuma imaan karto inaad intaasoo kun oo qof oo boqol oo kun oo qof aad mar walba barnaamij u samaysid oo aad dadaashid meel hoosaad ka soo bilowday maanta meel salaam maraysaa meel ka si fiican oo u socota insha Allah taala maxaad nooga sheegi kartaa safarka dheer aad soo martay si dad fara badan oo YouTube-ka ku cusub ama aan waxba ka ogeyn ay wax uga fahmaan wallahi horta YouTube-kani kuma dhibtoon kuma rafaadin sida dadka ay u doodaan yani ma arkin masha Allah waxaa kala kulmay raaxo haddii aan lahayd dhanka subscribe-ka waxaan hal sano aan ku xiray tiro ku dhow 400,000 subscribe dheedheel ma ahan yani haddaad dadaash xitaa ma gaaraysid keliya waxaad ka heli kartaa dadku jecel iyo dadku garab taagan marka masha Allah Soomaali dhana i jecel oo intaas i gaarsiisay oo ila tartansiinayso youtuberada kale anigoon ii fiirinaynin xaaladda aan ku jiro waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta channelkayga subscribe u ah iyo inta ku noqon doontaba masha Allah YouTube waxaan ku jiraa ugu yaraan 2 sano labadaas sano kuley yani ka hor ma rabin ama
hamigeyga ma ahan inaan youtuber aan noqdo waxaan dhowr jeer aan kasoo muuqday kanaalka walaalkayga arrimaheena kaas oo laga soo codsanayay in aan youtuber noqdo ama kanaal goon ay ila socdaan aan samaysto waxaan arkay mar aan arrimaheena oo youtube-kiis aan kasoo muuqanin ugu yaraan muddo kadibna yacni asid aabi meesha laga dhex video macnaa jecel meesha aan ka qabo dartiis aan youtube ku samaystay maasha allah marka in muddan kuma jiro keliya waxaan ku jiraa 2 sano waxaan ka dhex arkay dad jecel iyo dad far badan marka sidoo kale waxaan youtube-kayga aan soo geliyey ku dhawaad 400 video wax ka badan keliya waxaan ku arkay keliya waan hayaa 5 comments oo negative keliya marka negative kaasna looma joojinayo hal qof waxaa ka badan 20 qof صح ما شاء الله لو ما جوجيناي adigu niyahow anaga waa naga fiican tahay anagu haddaan wax qorno ama wax soo gelino intana aflagaadeynaysa iyo laakiin anigu ilaahay weligay qof xumaan soo qoray uma jawaabinin maxaa yeelay xorriyadul qowlka xaq uu leeyahay ha soo qoro wax dhibaato ma jirto ayadii aflagaadadana meel wax nagama gelaysa laakiin adigu waxaa uga duwan tahay dadka kale ummadoo dhan ba ilaahay ku jecelsiiyey ku jeclaysiiyey masha allah marka waxaa tahay shining star xidig dhalaalaysa masha allah lagama sheekeyn karo thank you so much brother waxaa jira dad waxaa jira youtube-ka ama facebook-ka ama baraha badan siyaabo kala duwan u isticmaala inaad dariiqan fiican oo aan dagaalka iyo dhibka iyo dadka la isku diro ama cayda ama barnaamijyada aan lahayn inaad raacdid wax markii horeba kaa go'naa miyay ahayd mise mar dambe wax kugu dhashay bay macnaha inaan dadka aan ka duunaado waxaan dadka la soo wadaagaya maa ka wadaa كل واحد خوف والبو يعني أصلا سوية هي أما ضدك وأركان إنه كل ما في عن مركا أنا قد ضدك وحي أركان إن أنا هاي يعني خوف ما تلاقي فيليني وحمان يعني وحمان توحن كبدا إن أن يعني ذنك فسقي وحسن وبطن ذنك فسقيا وحن أقول جيدا إن أن ما أنت يعني لو إزدغا شيء أما لو إسكرتي عن كهذلو أما وح أفار قبيلة aan ka hadlo ama wax siyaasad ah aan ka hadlo channelkayga wax siyaasad ah kama hadlin wax qabiil ah kama hadlin dad isfuraaya ama dad istagaashan iyo waxaas kama hadlin marka kaliya waxaan u badanahay yani wax aan u saabsan iyo markaas wax dadka markaas ay xiiseynayaan hadday ahlayeen wax wanaag ah marka xitaa yani reaction kama bixiyo badanaan waxaa laga soo codsaday inaan heesaha reaction aan ka bixiyo dada xiiseeyo sida heesa action laga bixiyo marka anigana taas waan ka diiday sababtoo ah yani waxaa igu xiran dad aan ila mid ah oo sariir jiifaan yani oo istiikan ama nido soo geli karta yani qofkaan wili wuxuu ku socdaa fisqiga ma fahanti marka waxyaabahaas qaar waan ka gaabsadaa iyagoo dhiirgelinayo weliba in aan sameeyo xaqiiqatan waxa weeye waxaa muuqata in maaragtay go'aankan aad qaadatay uu miro dhalay waxyaalaha dadku ay kugu jecel yihiin waxa weeye siyaasad iyo waxyaalahaas aad sheegayso kale inaadan soo dhexgelinin entertainment iyo wacyigelin iyo sheeko iyo luuqadda dhallinyarada baashaal waxa la dhaho in maaragtay ay tahay oo cidna aysan waxba u dhibaynin maasha allah wax lagu farxo waayo alxamdulilah إن شاء الله وحنا بكرة إنهم كويدي أسدو ولين لليرات هاي همي فربضان باكو جرة مقالضي أن دعوضي وحا كجري إن ماركتي أذيك يا خاطير تبرجاء كقبطان إن شاء الله تعالى إن إلهي ماركتي لوها مركا لكو سعودسيو فجلات تابع لأكتاي مركات قياستي هذه يا خاطير تاب alxamdulilah horta rajaweynaan leeyahay inaan dib lugaheygaan uu socdo insha allahu tacaala waxaan rabbi ka sugaa waaye dhanka dhakhaatiirtane su-aalahan dhowr jeer ay timaaday
xitaa qofka caadiga aan saaxiibnahay muxuu ku dhahay dhakhtarkaaga muxuu yani lugahaaga dib uu sheegay waxasaas ma fahantay marka koley alxamdulilah wax walba ilaah keeno dhakhaatiirta markaan waddankaan imaanaya waxaan dhaawacnaa dhowr cishood oo aan hal bil dhamayn adii 21 maalmood meelahaas aan dhaawacnaa markiin fiikan isla markiiba dhakhtarka lii geeyey dhowr dhakhtar aa lii geeyey hal kelima ah inkastoo kuwada badanaa ay dhaheen dhaawac baad la soo daaday macnaa intuu cusub yahay haddaad aad keen leedeen macnaa wax aan ka qaban lahayn kuwa qaarna wax kama qaban karna ay dhaheen kuwa qaarna waxay dhaheen 50-50 waaye haddaan yani qalin aan sameyno ama waxaa laga yaabaa in aan ku guuleysano ama waxaa laga yaabaa xitaa inuu gacmihiis waayo oo madax le yani uu kana nuuxay maanta waa ordaysa 50-50 waaye 50-50 waaye haddaan sameeyo sure ma uu leeyahay ama ma hubo mar waxaa laga yaabaa uu dhahay inuu gacmihiis waayo marna waxaa laga yaabaa inuu lugihiisu yani dib usoo noqdaan yani garanti rasmi idin siin karo marka anigan go'aankaas waa ka gaabsanay marka insha allah waxaa jiraan wadamo halkan ka horumarsan insha allah tacaala oo haddana aan ku hamweynahay in aan tago yani waa iska fahmi kartaa yani dhanka dhakhaatiirada bay kala fiican yihiin wadamada qaar marka insha allah waan suginaa tiro baan suginaa masha allah dadaal iyo tala saarasho ilaahay markay iskaalmaystaan mar walba miro fiican bay dhashaa masha allah ilaahayna waxba kumaahan asad xaajiyo oo ordaya inaan aragno haatan oo aad xaaladdan ku sugan tahayna dad fara badan oo lixdooda lixaad u dhammaystiranaysa adigoo shalay ahaan jirtay baad xaqiiqatan ka wax soo saar badan tahay ka tayo badan tahay kana dadaal badan tahay marka saaxiib waxaad kamid tahay dadka farakutiriska oo anigu shan aan ku faaro marka ilaahay subxaana watacaala arrintaas waxba kuma ahan maasha allah kugu faraxsanahay 100%. Thank you so much, thank you so much. waxaa jiray hadda ka hor yar oo dhalinyaro ah oo maxaa lahaa wheelchair ku socday oo saas oo kale ah oo aan geynay xafiiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska ninkaas wuxuu rabay dadka baahida gaarka qaba inuu ambassador u noqdo UN u fariisto waxaan ka yaabay xiniyaha ku jira iyo kartidiisa iyo wuxuu ku fakarayo إن شاء الله يعني واحد الغفر حواه الحمد لله يا بيلما ما شاء الله واحد والبو يعني واحد له فكر واي يعني قفكا مرهب ويلجر كسعودة ملحات في سواي يعني هم وليه هاي واحد بدن إنه خبطنا وجعلها أسقون أفيرني دتك لحات كلي دتك لحات كخباء دتك لحات كم خيها هاي إنه واحد خبط يعني سيدا هذا أنا أكله فكر وين يوجره إن شاء الله وأنا جارد أنا ما شاء الله dadka lixaadkoodu uusan u dhammaystirnayn oo mararka qaarkood laga yaabo maaragtay inay niyad jab ama maxaa lahaa walwal uu soo food saaro maxaa ku oran lahayd haddii maanta ay inta soo hor fadhiistaan aa u khudbayn kartid dadka curyaankooda wallahi horta alxamdulilah yani waxaa aaminsanahay inaan hadda aniga aan hoggaan ku hayo dad badan naafa noqdeen ila soo xiriiri way jiraan iyo dad ahba marka kulli waxay ii sheegaan markay aan i arkeen ama taariikhdeeda markaan u sheekeeyay ama sidaan wax u qabsanay markay arkeen inay igu daydaan taasna farxad ay tahay waana ku faraxsanahay aad iyo aad in maanta la igu daydo sidoo kale waxaan ula talin lahaa ama aan u jeedin lahaa sidaan hadda aad tahay ilaaha kaa dhigay يعني إلهن يعني لحد كوكوس اللي كرو مركا إن أتكو خناعي قدر تاله الحمد لله قدر الله أن كوسو خناعي كفاد بدن إيه لف بدن بان لصومري يعني بفهم كرتين خلين دور جرا صومري دي قد يوجر دي ماهن دي لول كسكو دماغي أنا خلين دا أنا يعني لي وضع بنك سالة أو خلين كوجرو يعني أن قصلي أن فرح سناي معنا وحن هو وح إلا كل يوم إن أن هلا إكليا يعني قدرت أنا من سنة مركا هذا نافوذي أما هذي واحد كان بخيين من سنة وكلها قدرت عليه إن شاء الله واحد بنا واحد عاصمة ذيسا واحد وخيمين هاي صبركايا إله سبحانه وتعالى وتوفيرنا صبركايا مركا وحن كلها هاي قدرت ربي من سنة
هذه وحوي هذا الكاس هذا النحر لوي إن قدرت الحمد لله. إلهي كل عدد آمن سنوات دلاشين وحا حسد مدن إن آن حسوسنه ما دام أنا ولاد المسلمين إلهي ندين تنقروح بدن السيي واحد حسستان نبي الله أيوب إلهي سدو إتحامي يسدو دعاديسي أو جوابي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له إلهي لمركبه أجيبي marka waa tusaale qurux badan weeye aad dhigtay in maaragtay qofku uu ilaahay qadartiisa ku sabro albaab markuu ilaahay kaa xirana boqol buu kuu furayaa laakiin dadku inta badan waxay ku mashquulaan kaas xiran say u furi lahaayeen laakiin kuma mashquulaan kuwa badan oo ilaahay oo dadka u furay maasha allah waxaa jira asad xaajiyow dad badan baa abaal kugu leh hooye iyo aabbo marka laga tago cabdulaahi xaajiyow ninkaasu waxa weeye waa shaqsi cajaa'ib ah oo marba walaalka asagoo ah buu haddana wuxuu dhaafay suu kuu garab istaagay iyo naftiisa inuu miiska inuu kuu saara rabay walaal sidaas oo kale inuu ilaahay ku siiyey يعني si looga mahad celiyo way adag tahay laakiin maxaad ku oran lahayd haddii caawa cabdulaahi uu kula joogi lahaa hortaada uu fadhin lahaa maxaa ku oran lahayd maasha allah horta waxaan ugu mahad celiyo iyo waxaan aan abaalkiisa u gudi karo ma jiro sababtoo ah maalintaa dhaawacmaa ilaa hadda asay garab istaagan dhiiggay dhul ku dhammaaday ilaa hadda asay garab istaagan Abdullah, I love you. Yeah. I love you, Abdullah. Yeah. Abaal kalaan uu gudi karo ma jiro. Kule inshallah ducadeedu haystaa wax kala dhihi kara ma asaas way saaxiib waxa weeye Cabdullaahi xaajiyo wuxuu haystaa ducadaada kii waalidka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa taageero u ah oo anigu aan mid ka mid ahay walaal aan jecelahay weeye wanaagiisa iyo dadaalkiisa iyo juhdiga uu geliyey in walaalkii uu gacan qabto xaalad adag adigoo ku sugnaa ilaa iyo maantana uu garab taagan yahay sidaad u tiri oo kale baan u jecelnahay Cabdullaahi xaajiyo brother we love you and we respect you waxaad tahay shakhsi aanu ku faano haddaad tahay haddaanahay ummadda Soomaaliyeed allah ku karaameeyo in badan baan u malaynaya Soomaalida inay ku xusi doonto iyo waayo fara badanba Cabdullaahi xaajiyo guuleyso wagaag haddaan dhinaca ka soo tagno dadka naafada ah ama qadar sidaadoo kale kugu dhacday ah ama ku dhashay ah Soomaalidu inta badan magacyo foolxun bay ugu yeeraan oo anigu aanan rabin inaan halkan ka dhaho magacyadaas oo qofkaas lagu liidayo muhiimad intee la eg bay asad xaajiyow ay leedahay in aan dadka magacyo loogu yeerinin markaas lagu dhibaataynayo sida erayada jerry oo kale madaxay kutubxoor laangara iyo waxyaalaha la midka ah inaan dadka lagu oranin muhiimad intee la eg bay leedahay wallahi arrintaas waa arrin aad u foolxun oo qofka markaas ah يعني لو تلمامay dareemi karaa inkastoo aniga aan kala jecleen laakiin waxay ila tahay inay tahay wax aad u fool xun oo laga fiican yahay xitaa qofka haduusna ku maqleenin yani in aadan ku dhihin yani qofkaas waa ilay waa jiis waa sidaan mafahant waxaas waa qofka yani qalbiyan ay taabanaysaa mafahant yani dad iska jecel way jiraan oo raal u ah in jerry jiis iyo waxaas la dhaho laakiin dadka isku mid maahan dad qaar way dhibaysaa marka anigana meel saas lagu dhahay ma maqlin ilaahay kama gale alxamdulillah laakiin waxa aaminsanahay in la dhahayo yani wiilka sidaas ah waa aaminsanahay yani si tilmaan lagu bixiyo marka dadka dhahayna yani wax kama qabo haddaan dhegeygaan ku maqlana yani wax dhibaad ima keenayaan sababtoo ah xanuunkii rafaadkii wax la soo maraa ogahay yani qof maanta afkiis wax ka dhahay wax igama dhibayan yani sidaan ilaahay iga dhigaan ujeedaa waana noqday marka inaan ka xumaado maahan laakiin aaminsanahay dadka ani ila mid ah inay waxaas yani in loo waco yani ogoleen
يعني أصلا رالك هنا قلبي جن أي وتوان صوته قف كاسو يهي أنا جن وندريم كرا وهنا هذه يعني وأساس وأحلى وقرح بدنها يعني كلية هذه يا هذه ولا قروح بدنها بقول كيو بقول إن مهمة إنتاج أي لا هاي بس لا هاي إن dadka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada baraha ku jirta inaysan ayagu dhexdooda isku mashquulinin oo aysan isku soo jeensanin laakiin midba midka kale uu gacan qabto oo wiilkaas wiilka gacan qabto gabadhan gabadhan gacan qabato gacmaha la isqabto qof walba qofka kala caawiya muhiimad intee leeg ayay leedahay والله يعني وهذا أن كنول نهاي سومال أهنهاي إسعابنا دواي فهمت قف ما نمو سين نيليتا وان قوانينا وان عاونينا هدي أهاليد إن وحلو أروريو هي هدي أهاليد إن ما يعيش صار له هذا أما سو مركز وح وكيل قال haddii aanu eegno waan ogahay xilli dambe ku tahay haddii aanu eegno labada sano soo socda geo maxaa u qorshaysan inuu mustaqbalka qabto iyo kan fog maxaad oran lahayd su'aalo aad dadka weydiisanna waa hay halkan yaalle يا ها soo socotay insha allah wax badana ii qorshaysan insha allahu tacaala ilaahay ii fududeeyo marka kuley يعني وهليل سعن دونا إن شاء الله والله أركض دونا يعني واحد كذي سوى كذي بس يهرب بندقة يا كذي سوى وحين خلام بقى روح أجل ويديسيد أو يونيك أو هذا كو جار أنت بدو ويديسيد سؤال تاني ويدي محمود يعني شروع لما سكر أبو ويدي haddii ay noqoto barita inaad maaragtay waxaa ku tirahdaa are you single baa weydiisaa hadda waxay noqotay slogan ama halku dheg adigii iyo ereygii lama kala qaadi karo waxaan arkaa mararka qaarkood dada saaxiiban oo barnaamijyada daawanaya markaas waxay isku dhahaan are you single man si fiican asal xaajiyo daawanayaan weydiisid adigan hee su-aashaas inaad dadka weydiisid maxaa ku keentay su-aashaas waxaan ku keenay waxaa jirto in aan janaalkayga badanaa aan soo gudbiyo yani dadkii isguursadan aad iyo aad aan u jeclahay yani waan ku faraxaa sidoo kalena yani dadka waxaa kusii baraarujiyaa inay isguursadaan oo intay nool yihiin wax ay dhalaan marka ay singaltaas waxay ku timaaday yani dadka aan u hambalyanayo dadka isguursaday yani qofka asxaabtay kamid ah markaan la hadlaya waxaa dhahay are you single are you still single wiil ma taagan tahay dadku way isguursanooyin khayrkaa guursaday guurso are you single-kii siday u dhigtay marka waxaan dadka xasuusinaya inay single yihiin oo ay ka baxaan hadda waxay noqotay erey oo halku dhega markii soo xasuustay dadkii way isku dhejinayaan ereygaas iyo adiga waxay leeyihiin are you still single taasi ku wadahayaan markay kulli ku daawanay way ogiina soo wadin intro kamid noqotay intro hadda ku tahay waa caan baxday masha allah waxaa tiri surprise waaye waa qarsanaa mustaqbalka waxaan samaynayaa tiri dhow hal iyo laba haddaa noo sii qashid ka waran okay dhib malahan insha allah waa idin sheegi doonaa yani inkastoo secret is yihiin laakiin wax khayr leh soo socdo kuley haddii ahaa lahayd in aan insha allah caafimaadkayga dib aan u helo oo sikadiisa aan idinkaga dhigo ama haddii aa lahayd yani wax uu sugaa oo mar kastana uu ku fikiro mafahante marka ya koofidin moodate kisa bulush camalnaa ka orda maaragta ya
إلى خوف بيها إنه عوادي دندا ما فهمت تي أنا هذا يقولك waxyaala ogahay soo socda dadku aysan ogeyn marka waxa in lagu juqjuqeeyo oo laga soo saaro يا إيه خلا waa maqlaysaan asad wuxuu dhahay caafimaadkii waa soo socdaa insha allahu tacaala arrin kalena waa soo socotaa laakiin hadda kama hordegi doono laakiin channelka asad waa ka daawan doontaan war weyn badan oo lagu farxaa soo socda marka idinku ka fakar waxaas waxay noqon karaan laakiin hadda idinma sheegin يا كفكرة فكرتين كديبتنا inta laga gaarayo insha allah tacaala okay asad noo soo gabagabay maxaa jeceshahay bulshada soomaalida ku jirada walaalkeed والله هذا سوق جبجبيو وحن dadka bulshada Soomaaliyeed aan u ulfinaa waxay tahay ugu horeen waxaan aad iyo aad aan ula dardaarmaa dadka yani ni jabsan oo naafoway oo hada sideedoo kale ku jiro yani waxaan u talin lahaa yani waxaan ilaaha ku keenay qadarti ilaahay dhacdo waaye marka aan jibin soo waxa qabsan kartid qabso marka aan yani igu cusbaa am noloshaan markii igu cusbeed yani xanuun badan la soo maray sawir badan kala soo maray inkastoo yani ana aaminsanaa inta yani cudurni aan dhihinay astaghfirullah intaan dhibki igu cusbaa ya dhaawac igu cusbaa yani waxyaabo badan aan iska dhaadhici jiray in aan wax qabsan karin in aan nolosha dhan aan ka niijaway maalmihii ugu horeysay alxamdulillah waxaan helay badan waxaan aaminsanaaday kulay nimcad alxamdulillah aan dhihi karaa in aan helay marka aan jabin hana khusanin soco waad socon kartaa socistan ma ahan in lugaha laga socdo waxa laga socdo waa qalbiga waxa wax loo hameeyay waa qalbiga marka ha isdiin waad curyaantay waa fariisatay waxa ma qabsan kartid ha isdiin marka kulay yani nolosheeda ka fahan alxamdulillah dadka qaar xitaa waxa aad aan u leeyaabaa ma u maleeyaan in aan wiljir aan ku fadhiyo mafahant marka waaka in sidaas lagu murmal rabaa yani qofkan muxuu yiraahdo marka alxamdulillah waan aaminsanahay in aysan waxba iga maqaneen kaliya waxaan ku dardaarmi lahaa jiifka kac soo qabso asxaabta galna dhalinyarada dhexgal masaajidka aad meel walbo qof uu dhexgali karo aad insha Allah taala sidaasaan u dardaarmi lahaa dadka kalena waxaan ula dardaarmaa oo lixadkooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay in ay caawiyaan qofka kaliita hadii ay ahaaleed inuu qofka yani lixadkiisna aan u dhameyn iyo hadii ahaaleed qofka inuu maanta gacan qabsi u baahan yahay marka waxaan kula dardaarmi lahaa nimcad ay haystid ku shukri sidoo kalena caawi walaalkaaga kaliita ما شاء الله دردارن وناكسن وقروح بدن وايه آدي آدم كوم هاد علنايا وحتى ولال آدم جعلها ددال فرق بدن هي أنا كلها الله يا عبد الحفيد إن مردم بقوا فيديو على هذا أركي ما هني والله إلهي يقصر رأي إنا ويلشير استعماش المؤوجين نين ددال بدن أو أرض بدن أو مطلب كحرمتها أو هميني مالش شقينا هي وحين كنت qofka aad tahay inside inaan dadka aan ogeyn inaan wheelchair ku fadhido anigoo kala xataa aysan ku fakarinin marka saaxiib anagoo oo laba lugood leh waa naga orod badan tahay waana naga fiican tahay waana naga hawl badan tahay thank you Allah ku cizeeyo Allah ku kalaameeyo waalid shay ku jeceshahay waa aragtay alxamdulillah ay ka sokow dadnimadaada iyo dadaalkaaga halkaas ku gaartay Allah ku kalaameeyo thank you so much waxaan jeclahay inaan si xagar la'aan ah oo qalbi ah ugu mahad celiyo walaalkay adiga walaalka anagoo dhan walaalkeen Cabdullaahi Xaajiyo Ilaahay ku kalaameeyo abaalkaaga anaga loo gudi karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyo aakhiro gudaya guulayso kalena familka waa salaamaya intaas thank you inshallah guulayso kaasa